sida uu noqonayo sidaan bahalkan u jeedin waa qatar timaha ayuu gurayaa. asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay mid kamid ah su'aalaha aad igu soo laabtay taasoo ah in timaha baararka indhaha oo gurmayo iyo waxyaabaha lagula tacaali karo maxaa daawo ah, habkee loo istaajin karaa timahaas baararka indhaha ee ka gurmayo. maanta muuqaalkeena midaas ayuu ku saabsan yahay. daawasho wacan. mar kale waa aniga oo Dr. Yaxya ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. haddii taa markuu horeyso muuqaaleen daawad subscribe sidoo kale haddii hore nooga mid ahayn like noo saar. marka hore aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa 10,000 ee qof ee page-kayga ku taxan ee subscribe saartay. waxaan rabaa hal inaan idinkugu mahadceliyo, aad u mahadsantihiin. haddii aan hore u gudagalno waxyaabaha sababaya in timaha baararka indhaha aad u gurmaan waxay tahay markii clinic-ga ay yimaadaan kale dadka aad cabashadaas u qabo boqolkiiba 50 wax ka badan waxyaabahan ku arko timaha baararkooda indhaha ayaa noqonayo sida tan. waa u jeedin waxa weeye waa jeermis fadhiisanayo timaha meesha dambe ee tinta iyo maqaarka inta u dhaxeyso. dadka qaar waxa markii aad dhahdid jeermis ama bacteria ayaa fadhiiso iska nadiifi, waxay iska malayaan wax iska caadi ah oo maaragtay biyo la iska dhaqi karo ama in ay wax yar iskaga malayaan. laakiin sawirka saxda ah ama waxyaabahaas hadda jaaljaalaha u jeediin sawirkiisa saxda markii zoom la saaro microscope la saaro sida uu noqonayo sidaan bahalkan u jeediin waa qatar timaha ayuu gurayaa. biyaha hadaa ku dhaqdidna kuma joogsanayo oo ma ku baaba'ayo. marka waxaan rabaa muuqaalka waxyaabaha bacteria ka baabi'inayo lama dhahi karo xitaa bacteria bahaladaas ka baabi'inayo in aan idinku sheego muuqaalkan iyo waxyaabaha qofku isticmaali karo. midaasna waxay tahay qofka inuu si maalinle ah u nadiifiyo. waxyaabaha qofku u nadiifinayo waxay tahay inta badan shaambooyin aja loogu talagalay, laakiin shaambooyinkaas laga yaabo in ay mataqaana aadan gacanta ku heli karin ama meesha aad joogtid laga heli karin. marka waxaad isticmaali kartaa shaambada marka caruurta oo markay dhashaan oo kale shaambada loo raacsiiyo oo maadooyin mataqaana kiimika aan raacsanayn. marka wax qaabkaa sameynaysan waxay tahay qofka inuu indhaha isku xiro shaambada mataqaana uu gacanta u mariyo kadibna farta ku masaajeynayo ku dhaqo. marka qaar waxaa laga yaabaa haddii ay heli karto kale brush yar oo brushka marka makeup lagu sameeyo iyadoo nadiif ah soo gadatay xataa laftirkeeda aad ku nadiifi kartaa. marka qofkay ku xiran tahay nooca marka bacteria heerka ee la eg tahay oo qofka si maalinle u nadiifayo. haddii aad u badantoo kale laga yaabo 3 jeer ilaa 5 jeer maalintii inaad u baahtid inaad ku masaajeysid oo shaambada noocaas ku dhaqdid. haddii mar walbana waxaa muhiim ah inuu dhakhtarkaaga indhaha uu la socdo in waxaan ay kaa dhammaadeen iyo in kale. haddii markaa uu shaambada xataa caruurta xataa kaa saacidi weyso si fiican u nadiifi weyso xataa si shaambooyin kale oo mataqaan loogu talagalo lagu nadiifiyo dhakhtarka indhaha uu kugu soo jeediyo aad ugu nadiifisid. haddii markaa uu qofka uu nadiifin waayo ama waxyaabaha ka ratibmaya waxay noqonaysaa haddii la baabi'in waayo in abuutuutuga kale isku bedasho, baararka indhaha ka nabra ka soo baxo, infection uu ka dhasho, inuu gurmo xataa timihii ay ka dhammaadaan. oo heerkaas markii ay gaarto daawadeeda ay noqonaysa xitaa daawo aad u dhib badan oo laga yaabo in xataa muddo ay qaadato. marka sida haddartaan masaajadan oo shaambada indhaha ayaad sameynaysaa. qaabka u sameynaysidna waa kuu sheegay iyadoo indhaha furan badanaha isaga dhaqan. dad badan waxaa markaa usoo jeediyo indhaha iyo shaambada iga hurinaysa maaha. indhaha isku xir si tartiiba adoo gacantaada farta la raacaya ku masaajeynaysaa ku dhaqaysaa. marka intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabayna. waxaan rajaynayaa muuqaal ka faa'iidaysteen. haddii aad muuqaal ka faa'iidaysteen like noo saar. waxaan idiin rajayaa caafimaad iyo indho fayow.